السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب المشهد قد وانا سام وشانل كبوجالي بويس أصحاب تقاليقة فضلا هداد كوع سبتاي شانل كيغا سبسكرايب صار فيديوغا تدكاشان لايك صار هداد كهلنا تدكاشان هداد كهلنا بس صار waxaan lacag ugu leeyahay asxaabta qaaliga maanta waxaan doonayaa reaction aan ka sameeyo deeq evro video ay soo dubtay oo leedahay yaan la aasin aniga yaan leeba aasinba waa shaga cusub horta sideedaba dad fara badan waxaa jira aan baan ka mid ahay dadka bini'aadamka qof walba qabriga uu ka cabsadaa laakiin waxa la yiri waa lama huraan wax haduu wax lama huraan yahay waxaad cabsadiis waxay sheegaysaa male haddii aan lagu duugin dadka qarmad u dili ilaa qof bini'aadamku uraya hadduu 3 bari yaal ama 2 bari yaal qofku bini'aadamku uraya marka walaalay qof walba day wal aas ama dardaaran qof bini'aadam oo meedkiisu banaankiisa oo leeyahay ma jirto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ahaa sharaf badane oo ilaahay doortay yaa la aasay oo dhulka loo smariyay marka deeq afro iyo fanaan iyo aniga iyo adiga iyo midnaba waxaan ku yiri qabri laga deyn maayo mar haddii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la aasay asxaabtii iyo nabiyadii oo dhan marka yaan video ka hor dhicin bal videoga waa daawana iyo waxa ay deeq afro leedahay anuse waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintuu ii oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay ii oofsado ee ajasheedu dhammaato ee aan dhinto inaan طب هذا قبل ما كنا بواحد يجيس ما أنت عن أي شيء تكشر أن أنت يلا آسن يلا آسن ولا هي لو آسن ما يلا تصير ذكرت ما تكون هرسة وحويان runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyay runtii uu iniyad jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaalo laakiin isagu sidoo ii sheegay in isagu maxaa la yiraahdaa uu saxiixay markuu isagu dhinto wala la baro haddana diinta islaamka aqoon baro sidoo kale markii waxaas oo kale aad ka hadlayso farada shacabka iyo adan social media la imaan inaad google garayso hadda adduunka wax walba cidba ma taqaan wax google kan baa la tagaa cid walba google ka macallin waa google garay waxay diintu ka qabto waxay diintu ka qabin qof dad islaameen waxaan ku yiri dad ogaata inay diintu aysan wax dad soo ogaata waxay diintu ka qabto in qabriga aan loo aasin kadib markaas noo imaan kartaa laakiin anu yaa diinta la cararin waxa diinta lagu cararin waay qof walba hadii uu diinta ay qof la aasira qof walba wuxuu leeyahay aniga meedkiga hayba yaala free tali gariye in walba guriga isdhiga lahaa soo maxaa la yiraahdaa uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaanallah marka aniga ahaantayda fikradeyda waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yiraahdaa aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa ku system ahaan bal waxay tiri iyadoo diinta la ixtiraamayo oo diinta meesheeda loogu tegin haddana anagu qiil kuma hayno يعني waxaa leedahay diinta iska daaya laakiin wax kale ii sheeg walaal anagu diinta ma deyn karo waxaan ku yiri hadaad qof salaam baa tahay hadaad agteeda ku dhimato oo adiga hormarto qofka ugu horeeya badalka waliba badal ma zumbu maqalaya zumbu badal iyo waxa iyo gacan waayo waqtiga qaadanaysa zumbu hal mar saa wax u darta dhulkaba ku siis deega caadi dhakhtarka inta wuxuu yiri aniga isagu wuxuu saxiixay in la gubo nin hindiya u tagtay oo krishma caawida ya ويسوي أميسان بعد ما كل جو بعضه إلهي بنقول شيء طب يسكت داره بسم الله الرحمن طب تلوك صوروا بوك نعرفتي لقى عبسني يا لفاها يكون دونا طيبة نعرفتي إلهي لقى من قلي يا بدأوا بس وصقاتي نو إن فكرة هان يو محاكور السيستم هان بروح عرنتان كسر تجري كنا الأيام adduunka maxaa la yiraahdaa dhul aan kama jirto adduunka dhul badan baa iska bannaan dhul kasta wuxuu wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana
oo maydka عادي الدون كله لان كم شرطو dhulka wadan kasta dhul baa iska banaan dhulkan wuxuu u baahan yahay in lagu shaqeysto in beer laga dhigto in maaha meed la dhigo hataa meedkaaga lafkiisa kusi jiri maayo meesha markii lagu aaso 10 years 40 years kadib waa caadi waa lasaga tuuri lafaaga waxaan ku yidhi ciida cunaysa meel caadi laga dhigi laakiin meedkayga meel laga wax meedkayga meel hal iska dhigo wax sax soconaya maaha حد كتب حتى عدا فيرسي سيستم بقى وحو سعودان وحويا ضدك عدد إيكسي ضدك سي قبوبية يا ضدك الصوت معلانيا runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tira badan yihiin oo runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada marka ugu horreysa gabadha markii ay waxaa ka hadlaysa waxaan sheegay gabadha waa yar xanuun halisa lagu sheegay oo dee geerida qof walba xilligu dhimana ilaahay baa ogu laakiin markii xanuun halisa sida kansarka oo kale lagu sheegay ay gaaladu ay dhakhaatiirtu waqti kuga qabtaan ay ku dhahaan intaas oo bilood kadib aad dhimanaysaa dee is a chance qofku ku dhiman karaa intaas dee wuuna dee jishiisha aysa gelina wuu noolaan karaa laakiin waxay moodaa gabadha in xanuun halisa markoriyaan moodaya in xanuun halistii lagu sheegay ay dadaarmaysaaba laakiin maxay tiri waan caafimaad qaba maasha allah marada caafimaad qabto alxamdulilah ku faraxsanahay lagu kiib karaya meesha laga aasi lahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unba iga tahay waana waxaan la huraynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto maadaaba waxaan anigu rabo weeyaan anigu in lay aaso diyaar hee umay garanti annaga haddaba diyaaro inaan ku aaso annaga yaa diyaaro inaan ku aasan hadda qofkaagii oo tuu meyd ah meel ku yaalla ama geed ku saaran qofkaagii oo meyd ah ku yaal marka walaala waxay tiri qofan mar baan farka xidhanaya sidee kale hanoo dardaaran annaga halan dhihin qofka iga nool dambeeya waxay aasin annaga wax kale noo dardaaran wax dardaaran mee noo sheeg kaar bankigaaga nambarkiisa iyo binkiisa waxaas aan dardaarane in lay aasin wax dhul maxaa la yidhahdaaye hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da-a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro qofkii iga dambeeya ayay arrintana qusaysaa aniga ilaa ka xabaalo hee naxariisto aad kusoo duxdo ajir iyo xasanaatoona ka heli maysid anu kala kaxay taqabray inuu kala kaxee wax allaala iyo waxaan kaa dhaho ma garanayo waa sheeko wala sheekada gabadha wata haddii gabadha xamsanayso daal ducay nooga baahan tahay cay uma baahna marka qofka biniaadanka waxaan ku yidhi iimaankeeda laga yaaba inuu daciifsan yahay marka qofka iimaanka biniaadanka qofku waa inuu hadduu iimaanka daciif waxyaala fara badan baa niyadiisa kusoo dhacaysa marka waxyaalaha niyadaada kusoo dhacaya maaha inaad dadka public ama aad ka hadasho ama aad dee qof walba there's a lot of people nacab qabriga waa nacbay qabriga laakiin haddana waxaan aaminsanahay in ogahay qof walba acmalkii uu sameeyey buu la gelayaa naxariista ilaahay lagama qursado naxariista ilaahay lagama qurstan ka wada sorry marka intaasaan kaga hadhayaa hodan africa deeq afro aan ka wadaa deeq afro walaashay allah ku caafiyo adaad xanuunsanayso allah kusoo hanuuniyo asxaabta qaaliga please hadaad ku cusub tahay channelkayga please subscribe sar waanigoo abshirah oo idinle assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaa